calaamadaha lagu garto marka uu ku soo hayo xanuunka macaanka siba markuu bilbilowga yahay. Xanuunka sokorta wuxuu kor u qaadaa macaanka dhiigga, waxaana lagu aqoonsan karaa dhowr calaamadood. Haddaad iska gaadhi weydo, waxaa suurtagal ah in xaaladaada caafimaad ay aad u sii murugto. halkani waa xarunta sayniska iyo taariikhda. dhagaystayaasha sharafta badan, waxaan idinka codsanayaa taageerista xaruntan cusub ee lagu wacyigelinayo bulshada Soomaaliyeed. kanaalkeena YouTube-kana waa xarunta sayniska iyo taariikhda. fadlan waxaan u baahanahay 1000 subscribers si aan u soo galo live-ka YouTube-ka ee igu caawiya. waad mahadsantihiin. Kaadi badan. Macaanka jidhka markuu sare u kaco, kilyaha waxay isku dayaan inay jidhka ka dhaqaan sokorta badan ayagoo dhiigga ka soo nuuga macaanka. waxaadna ku garan kartaa marka aad kaadiso in ay kaadidaadu iskugu imaadaan quraanjada loo yaqaano macaan jecelka. 2. oon badan. mar hadday badato kaadida jidhkaaga ka soo baxayso, jidhkaaga waxaa ku dhaco dehydration ama fuuqbax. taas ayaana keento inaad markasta u baahato inaad biyo badan cabto. 3. gaajo badan. jidhka wuxuu awoodiisa ka helaa sokorta ama carbohydrateska ama macaanka uu cunayo qofka. maadaama uu ruuxii jidhkiisa nuugi karin cuntadii uu cunay oo badankeeda banaanka loo soo saaro, qofka waxaa ku dhaco tabar la-aan iyo baahi badan oo aan dhammaad lahayn. daalka badan. 4 waa lambar 4. maadaama ruuxa dhiiggiisa macaankii uu tabarta ka heli lahaa banaanka loo soo tufahayo, waxaa dhacayo in ruuxa markasta uu daalo oo xubnihiisa u dhaqaajin waayo culays dartiis, waayo awoodiisa ayaa yaraanayso. lambar 5. indhaha oo caad kaa fuulo. indhaha waxay leeyihiin xididdo yaryar oo dhiigga qaado. marka uu dhiigga wasakh noqdo oo ay sokortu ka buuxsanto, waxaa dhacdo wasakhdaas inay araggiisa hoos u dhigto. hadday xaaladda ku xumaatana, waxaa suurtagal ah inay xididaha indhaha ay qarxaan oo ruuxu indhabeel ku dhaco. lambarka kale waxa weeyaan boogaha oon durbo ku bogsoonin. ruuxa marka uu macaanka soo hayo, waxay qaataan boogihiisa toddobaadyo inay ku bogsoodaan. sababta waxay tahay dhiigga markuu macaanka ka bato, waxay waxyeello u geystaan neerfaha jidhka iyo wareegga dhiigga. 7. kabuubyada gacmaha iyo lugaha. hadduusan ruuxa isla gaadhin dawo, waxaa dhacda macaanka inuu waxyeeleeyo neerfaha iyo wareegga dhiigga gacmaha iyo lugaha, taas oo keento kabuubyo fara badan iyo xanuunba. 8. barabara madow oo kasoo daato oogada korkeeda. marka ay sokorta jidhkaaga ku badato, waxaa dhacdo inay barabara madow kasoo baxaan dubka, siiba luqunta, kilkilaha iyo bowdyada mise canjirada. 9. cuncun badan iyo baarada bahasha la yidhaahdo. maadaama ay jidhkaaga ku jirto sokor badan, sokortaasi waxaa quuto fangaska, taas oo dhaliso inaad isku aragto jidh cuncun badan iyo infectionka keeno baarada oo ku dhasho laablaabyada jidhka iyo goljilicyada jidhkaaga. dhagaysta, haddaad ka faa'iidaysatay videogan, waxaan kugu borinayaa inaad qaybiso si ay u gaadho faa'iidada dadka oo dhan. waad mahadsantahay. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu.